سير oo cajiib ah hiba amaar gabar la yiraahdo ayaa waxay tidhi markii aabahay hooyaday soo doontay wuxuu xifdiyay suuratu al-imraan ayadana ayuu meher uga dhigay markii aniga ninkayga soo doonay aabahay wuxuu ku yiri hadii aad gabadhayda rabto waa inaad hal suurad aad xifdisaa meher ahaan guurka ma dhacayo ilaa aan meherkayga helo waxa la ii weydiiyay bay tidhi inaan suurad qabsado waxaan doortay suuratu nuur waxaan u doortay suurada sharciyada ay ka hadlayso suurada iyo kaloo ah in ay suurada adag tahay oo xifdiskeeda dhib badan yahay arooskii baa dhamaanteen ku wada mashquulnay alaab gadowgii iyo guri habayskiisii laakiin ninkayga kitaabka quraanka gacantiisa kama maqnaan jirin oo kitaabka ayuu ku fooraray si uu xifdiyo suuratu nuur maalmo ka hor intaanan arooska la gaarin ayaa ninkayga aabahay u yimid si uu ugu aqriyo quraanka oo suuratu nuur oo xifdinayay uga baxo aabahay wuxuu ku yiri ninkayga hadii aad aayad qaladid ugu suurado dhan ayaad soo bilaabaysaa ninkayga wuxuu bilaabay in suuratu nuur akhriyo isagoo ku aqrinayo cod degan oo aad u qurux badan taasoo aan waligay hilmaamin doonin hooyaday aniga waa isfiirino oo isku dhoolo cadeynaa anagoo sugayno in uu ninkayga hal aayad qaldo si uu soo bilaabo suurada oo codkiisa macaan aan ku raaxaysano isaga ajarkiisana u bato maadaama uu akhrinayo quraanka kariimka laakiin se Allah barakeeye suuratu nuur aad ayuu u xifdiyay oo hal aayad muusan qaldin markuu dhameeyay suuratu nuur ayaa aabahay habsiiyay oo u hambaliyay oo ku dhahay maanta gabadhayda ayaan ku guurinayaa maadaama aad ka soo baxday oo fulisay meherkeedii oo ahaa inaad suuratu nuur xifdiso ninkayga lacag ima uusan siinin meher ahaan dahab fara badan oo kumanaan kun ah u dhigmanay magadin wuxuu meher iga dhigay hadalka Ilaahay amaar waxay hadalkeeda ku soo gabagabaysato loo suuradee gabadheeda dooran doonta meher ahaan mustaqbalka fadlan hadaad xiisaynayso qisooyinka jacaylka ku xirnaa bogga Shamedia ee halkaasi nagala xiriir